ereyga micnihiisu waa meel ka baxsan ama ka fog magaalada waxaana inta badan ku nool xoolo dhaqato reer guuraa ah oo sahamiya hadba halka lagu sheego dhibicda roobka taasi oo ay ku kaliftay xoolaha ay dhaqdaan si ay ula raadiyaan meel daaq leh waana dhaqan soo jireena oo fac weyn in la raaco tiixa roobka haddaba Soomaalidu waxay caan ku tahay nolol geedi joogto ah maadaama ay dhaqdaan saddexda meensi ee xoolaha waana hantida ugu badan ee ay isbidaan in ay leeyihiin xoolaha nooli qoysaska reer guuraaga marka ay guurayaan waxa gaadiid u ah awrta oo ay ku rartaan agabkooda iyadoo sidoo kalena la saaro caruurta aan safarka gali karin oo la seexiyo shidhka sare ee ritiga kana waa surrad oo ilmaha daryeel looga dhigaa oo lagu qabtaa macnaha uu soo dhicno ilmaha lagu marka kan waa dhigo oo xariga saanta haya ilmaha saanta ku xilay buu xariga haya asna waa heegal haddaba Soomaalida waxa hooy u ah aqal kolba meesha lagu sheego ila barwaaqo loola guuro iyadoo la saarayo awrta waana aqalka wata magaca guud ee Soomaalinimada oo la yiraahdo aqal Soomaali aqal Soomaaligu waa aqal dadan oo asal ahaan dadka Soomaalidu ay dhistaan gaar ahaan reer guuraaga ayaa u badan sida caadiga ahna aqal Soomaaliga waxa laga sameeyaa dhigo udbo hararo xarko iyo waxyaalo kale oo markaasi lagu qurxinayo aqalkan waa aqal rarmi kara furfurmi kara oo kolba halkii loo guurayo loo rarto marka reer guuraagu uu dego goobtii uu ku yimid sahanka iyo baadigoobka roobka iyo barwaaqo sooranta waxay qorsheeyaan in ay oodaan xaryihii lagu xarayn lahaa xoolaha ay la soo hayaameen qabalaha Gebicas waxa uu ka tirsan yahay degmada Goday ee gobolka Shabeelle waana goob barwaaqo ah oo ay iskugu yimaadeen reer guuraa badan oo xoolahooda la soo daaqiyo doogba doontay dadka reer guuraaga ee ay kulmisay doogaadu waxay inta badan ku mashquulsan yihiin hawlaha qorshaynta qoyskooda daryeelidda xoolaha iyo barbaarinta awlaadooda marka subaxa hore la kaco ee la tukado salaada faralka waxay caruurtu u xaadiraan malcaamadda ama quraanka oo ay soo dhigtaan waxaana halkaas ugu diyaara macallin quraanka oo ardayda u marinaya quraanka kariimka iyadoo loogu dhigayo looxi iyo khadkii oo ay ku wataan tawaada inna arsalna nuuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli أن يأتيهم أن اعبدوا الله هويان فهمك أرضيدا بوغا يا لوحة أرضيدا waxay kaga faham badan yihiin looxa sababta oo ah looxu waa la dhigayaa qad baa lagu dhigayaa qada markii lagu dhigo hadana wuxuu marayaa dhaqme oo bari saadamba oo kale waa la dhaqi qadii waxa laga baxayaa looxaas laba jeer markii la dhigo waa laga bixi markii hadhow la dhaqayna waa laga bixi
hadhow marka ilmuhu sumca qumaati uga qayb galaya waxaana arday quraanka lagu gartaa ama calaamad u ah khadka oo dhigto hoostiisa loo marinayo wuxuu cadeynayaa calaamad weeyaan oo ku tusinaysa inay arday yihiin qadda dhigta hoosteeda ciyaalka laga marinayo waa calaamad ku tusinaysa inay qaddi haystaan oo looxi haystaan oo arday yihiin oo adaab u keenaysa intaasina waxa u dheer ardaygii ka soo bixi waayay cashirkii loo dhigay waa la garaacaa markaana waxa la fadhiisiyaa meel gooni ah ardayga ka soo bixi waaya looxa waxa la sameeyaa meel baa keligii loo fadhiisinayaa ardayda xagga looga fadhiisinayaa ul yar intii la qaato ayaa lagu edbinayaa ushaas siduu u garto looxii waxayna ujeeddada ka dambaysa ay tahay inuu ardaygu yeesho faham fiican oo isku taxalluujiyo inuu ka soo baxo cashirkii loo dhigay maadaama loox garan waaye la garaaco meesha la fadhiisiyey waxaan ku xoogayaa in loox ka bixi karo biyaha reerku cabbayo waxa soo dhaamiya inta badan dumarka oo ay tahay shaqada ay u qaabilsan yihiin waxaana gaadiid u ah dameeraha ku caan baxay dhaanka biyaha soomaalinimada iyo dhaqanka suuban aynu leenahay waa mid aynan cid kale inala wadaagin waxaana aad ku cajab gelinaysaa farsamada habaysan ee lagu bislaynayo sarciga ay quudanayaan reerku ama qoysku mooyuhu waa caabiyaha ama caawiyaha u sahlaya haweenayda in ay diyaariso cunto diiran waxayna haweenka laba gabcoodinaya ay isweydaarsadaan odhaahyo ah mooyaha magicii ciltire tibtana culus iyo cabban baa la yidhaa taasi oo ah maahmaahyada caanka ee uu leeyahay mooyuhu waxaana marka lagu jiro tumidda gellayda ama masagada si wada jira u talantaalituma laba haween oo isweydaarsanaya laba tibood iyadoo ay isu jiibinayaan hees hawleedka mooyaha mooyaha waa geed la soo gooyo la qoray tibahana waa loo soo gooyey raashinkan ku tamanaa marka raashinka waa la tumi waa la wari waa la riiqi markii la shiido shiidka lagu shiido yaa markaa reerka loo karin geedaha waaweyn ee xaggan qowyaha garaska iyo yaa laga soo goyn geedahaas marka laga qori waa la hadiyey waa la waray waa la hadiyey dana waa la shiiday dana waa la gurguriyey haddana dugsi oo kar ayaa lagu ridaa gacalo gacanta adu wargaarta geedna kaama gulaal gaani kaama qaniin saasoo lagu heesaa waa shaqo u baahan tababar iyo xirfad gooni ah
waxaad arkaysaan in gallaydan ay haweensi talantaaliya u tumayaan isla markaasina ay wadhayaan markay ingegto kadibna mishiinkaasi dhagax gacmeedka lagu shiidayo laakiin waa shaqo u baahan tababar xirfad gooniya iyo waliba in aad la qabsato jawiga lagu tumayo laba tibood oo isdhaafdhaafaya intaasi kadib waxaa lagu shiidaa dhagax gacmeedkan oo aan ka dhicin mishiin waxayna haweeneyda shiidaysaa raashinka ay ku istareexsan tahay in iyada oo joogta reerkeeda oo ay ishana kala socoto baylahda reerkeeda afkana ka maamulayso hawsha qoyska haddana ay gacanta ku ridqayso raashinkii ay reerku cuni lahaayeen sigada waa la tumi waa la wari waa kolka angagtaad shiidi waad karin waad irbayn waad taacad aragtoo sida saa loo irbaynhayo soo lama karinhayo canjeerada saa lama dho wax walba ilaan waxbuu leeyahay waa la karinhayaa irbaha lagu karinayaa balse ma isweydiisay qofka ka tega magaalo ee isdhaha dhagaxaasi wax ku shiid marxaladda uu la kulmayo gebicas oo ah meel barwaaqo soorana oo soo jiidatay bulsho idil oo reer guuraa ah ayaa waxa ka muuqda nimcadii ilaahay waana xilli biyuhu ay ceegaagan yihiin balliyaduna ay burqanayaan dhulkuna uu cagaar yahay dhirtuna ay isku darsatay caleen hodana iyo ubaxyo qurxoon oo soo jiidasho leh reer miyiga ayaa wakhtigan oo kale aad ugu faraxsan barwaaqo sooranta ay ku jiraan waana wakhtiga ay xooluhu caylaan qaarkoodna ay rimaan neefafka irmaanna caana laga helo odayga ama duqa reerka marka uu geediga yahay waxa uu leeyahay guri gooniya oo loogu talagalo duqa reerka mas'uulka ka ah ee bixinaya awaamirta lagu kala hawlgalayo iyada oo uu shakhsi kastana ka dharagsan yahay hawsha uu reerka ugu filan yahay gurigan waa kaygi gurigaa kaleetana waxaa weeye gabadha iyo waxaa seexda ma garanaysaa ciyaalka kale iyo xaaska ayaa seexda kana anigaa iskale marka nin walbaba shaqadiisa asagaa haysta qofka kaleeto ku leexanaya ma jira waxaa weeye haddii macnaha looda ay imaato lismadeeda waxaa iskale hooyada noo lista dadku shaqadiisu sidaasay shaqadana u diyaar tahay qof kale qofka lagu duraaminaya ma jiro hadda gaadiidka waxaa naga foofa awrta waxaa soo dheelma gabadhaa noo soo dheelanta oo soo xaraysa gaadiidka dameerahana gabadhaa noo dhaamisa weylaha maxaan ku dhahay ciyaalka gabadha yar iyo wiilka yarkaa noo xareeya hooyaduna looday noo listaa waa qofka kale ku leexanaya oo shaqadiisa ma jirto shaqadaanadu waa sidaa reer guuraaga haddaan nahay xiraadka ama raashinka reerku uu cunayo waxaa diyaarisa gabadha oo reerka iyadu u qaabilsan dhanka biyaha iyo raashinka iyo wixii kale ee baylaha ee markaasi looga baahdo inay fuliso saraca la cunayo waxaa weeye waxaa noo qabataa hooyadaa noo qabataa hooyada hadduu xanuun iyo waxaa imaadana gabadha ma garanaysaa ay raashinka noo karisa oo noo tunta shaqada waa saasaa loo kala leeyahay neecawda udgoon iyo hawada nadiifta ee ay wehelinayso jabaqda iyo codadka xoolaha oo uu midba dhinac u ciiyayo waxa kuu dheer in ay dhagahagu ku raaxaystaan codadka kala duwan ee shimbiraha taasi oo ku gelinaysa dareen gooniya
waxaana dadka reer guuraaga ah ee nasiibka u helay in ay foofiyaan subax kaste 3 meesiye xoolaha ee ay noloshoodu ku tiirsan tahay ay kaga duwan yihiin dadka magaalada dhegaysiga joogtada codadka kala duwan ee dhagaha u roon iyo weliba neecawda udgoon ee ay ku raaxaysanayaan waqtiyo kooban oo aanu la qaadannay nolosha bulshada reer guuraaga waxa ay ka qiimo badnayd waqtiyo dheer oo aanu magaalada joognay taasi oo la mid ah sida ay u kala duwan yihiin dadka ku nool miyiga iyo magaalada iyo weliba farqiga u dhaxeeya dadka miyiga iyo dadka magaalada waxay ku kala duwan yihiin dadka maciishadooda waxa weeye reer magaalka waxa weeye waa dad aan xoolo dhaqato ahayn waa dad ma garanaysaa iska harsada waxay ku kala duwan yihiin ma garanaysaa dadkan kaleeto waxaad arkaysaa reer magaalka qof leeyahay caano u bukaa hilib u bukaa laakiin reer miyigu hilib ooma baahno waxay ku kala bedelan yihiin noloshooda waxa weeye hantida noolaha ay ku nool yihiin reer miyiga kaga sii quruxsanada si la joogo anigu arko gaastariga reer magaalka ayuu gaasaska ku kacaa badan oo dhibaa laakiin dadka reer miyiga waa ku yar yahay lagamana helaba waxaana koosgareeyay nafaqada xoolaha marka ay cadceeddu godka qayb la gasho ayna isqabsadaan fallaadhaha cas dhulkuna uu noqdo madow qurxoon waxaa agagaarka reerka soo buux dhaafiya xoolaha oo soo dheelmanaya miyigu waa meel dadku dhammaan ay ku hawlan yihiin hawlahooda shaqo waxaana gabalku marka uu dhaco soo wada dheelmada xoolaha oo uu mid walba u baahan yahay in xiradiisa lagu xareeyo waana xilliga ay ugu mashquulka badan yihiin dadka reer miyigu abo baqashaariga ka xiro ilmaha rajay ariga u qabto ayelisa oy ariga magaranaysaa وانت تشوف عريض عريض تقبطه عريض مقصة حريو يا معاك دعاية انت قليل وحرير يا وحراسي في عنه وجوه ويجي ما شفته سنانية ومقرنسها معاك دعاية قرار كان عريض دحر كي تقبطه بسيطة وإذا كفة قوي أريا كان كسر عليه أريا مقشر ما تمشي داية براك نقدر قتينا وهاي
للمضطربين كانوا أو تكون يصيرون أنهم wakhtigan ardaydu markay xareeyaan xoolihii waxay isku diyaariyaan in ay subciyaan qur-aanka kariimka maadaama ay maalintii xoolaha raacaan habeenkii ayaa intay golaystaan oo ay dab shitaan halkaasina ay ku subciyaan qur-aanka kariimka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون نبأ عظيم هم فيه مختلفون سيعلمون على الذي هدى إذا أوتادا خلقناكم أزواجا لا نخلقكم سراتا لبين لباسا لنهار معاشا فوقكم سبعا شهادا سراجا وهاجا صراط الله سجادا حقا ونباتا عقل ألفافا والفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا وجزاء وفاقا لا يجدون إثاما بآياتنا كذابا إن أتيناه كتابا فلن نزيدكم إلا عذابا وقيل مبادا وعذابا dadka noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolaha waa mid ku xidhan cimilada iyo doogaadda iyagoo la qaybsanaya nolosha xoolaha ay dhaqdaan balse markuu gugu barwaaqo yahay xooluhuna ay dhalaan dhirtuna ay magoosho dhulkuna uu isqabsado hibaaq waa xilliga reer miyigu ay dhahaan waa barwaaqo sooran waana xilliga ay iskugu soo baxaan tumashada dhaantada marka ay nidaamiyaan baylahda reerka ayay wiilasha iyo gabdhuhu halkaasi ku kala rogtaan dhaantada jiibta iyo jaanta wadata Why
I